saddexdiinna musharax ee labana axmed cabdalle yihiin midna uu reecaliga yahay waxaannu idin leennahay ha kala ololaysanine wada ololaysta cuqaasha salaadiinta madax dhaqameedka waayeelka waxgaradka aqoon-yahanka dhallinyarada iyo badi labeynta beelaha dega deegaanada hawd iyo hargeysa gaar ahaan beelaha cali cabdalle iyo axmed cabdalle oo maanta magaalada hargeysa ku yeeshay kulan ballaadhan oo mugdiisa leh ayaa soo bandhigay musharaxiinta rasmiga ee isla qaateen ay uga qayb galaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayay inay dhowaan somalilan ka qabsomaana kulankan ayaana gunaanadkiisii la isla maaldhigay inay beelahaasi matali doonaan musharaxiinta kale ah yuusuf xariir xirsi adari oo u taagan doorashada golaha wakiilada ee somalilan cabdiqaadir iimaan warsame u taagan doorashada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa iyo khaalid sheekh xuseen oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee gobolka hawd qaar ka mid a madax dhaqameedkii waayeelkii aqoon-yahankii iyo sidoo kale odayaashii ka qayb galay munaasabadda oo ay ka mid ahaayeen caaqil cabdiraxmaan shucayb jaamac iyo sidoo kale suldaankiisa bade ayaa xusay in is-afgarad midhodhala la gaadhay waxaanay ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay isku duubnidu waxaan ogeysinaynaa in markii labada beelood ee walaala ay wada shireen bacbar loo soo saaray xildhibaanka baarlamaanka xariir xirsi axmed kirsiga deegaanka ee hargeysana loo soo saaray cabdilqaadir iimaan warsame nuur duceeye ninka la yidhaahdana kursi deegaan oo balligubadlaah waxaannu rajaynaynaa rag iyo dumar dhallinyar iyo carruur mid jooga miyi iyo mid magaalo mid qurbaa jira inuu sidaa ogaado ninkii kale yimaadaa waa cankamuud yaan laydin khiyaamayn waa nin dhabarka la soo taabtay halkan maanta waxaa isugu yimi labada qoys ee walaalaha ah cali cabdalle iyo axmed cabdalle waxay ku heshiiyeen arrinku meel kasta uu ka dhacayo meel kastuu waxa la isugu soo dabaalay cabdilqaadir iimaan warsame oo deegaankaah iyo xariir xirsi adar oo baarlamaankaah iyo ninkaa la yidhaahdo awduceeyeoo golaha deegaanka ee balligubadlaah saddexdaa musharax baa halkan la isku raacay in reerku uu doorto wixii kale meel kale ka yimaaddaa iyagaa danahooda og waxaannu gaadhsiinaynaa dhammaan debad iyo gudaba in hawshaasi farriintaasi aannu maanta halkan ka dirayno inay u diyaargaroobaan miyi iyo magaalaba qurbajoog meel kastoo ay joogaan dhallinyaro haween cid waliba inay maanta sidaa ku ogaato in shirweynaha halkaa lagu qaatay in hawshaasi farriintaasi lagu gaadhsiiyo oo ay ka qayb qaataan oo ay isgarab taagaan oo ay soo saaraan ayaannu ugu baaqaynaa sidaasay isku raaceen reerku waxaanu ka codsanaynaa dadka dadweynaha hadday miyi joogaan iyo hadday hargeyso joogaan iyo hadday debad joogaanba inay sidaa ogaadaan saddexdiinna musharax ee labana axmed cabdalle yihiin midna uu reecaliga yahay waxaannu idin leennahay ha kala ololaysanine wada ololaysta ayaannu idin leennahay aanu idinku gunaanadayna sidaasaannu idinku ducaynaynaa dhankooda musharaxiinta yuusuf xariir xirsi adari oo u taagan doorashada golaha wakiilada cabdiqaadir iimaan warsame oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee hargeysa iyo khaalid sheekh xuseen oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee gobolka hawd oo munaasabadda ka hadla ayaa xusay inay diyaar u yihiin fulinta iyo ku fooganaanta danaha beelaha iyagoona intaasi ku daray inay garbaha ay ku duulayaan ay yihiin dadka deegaankooda oo maanta cudud taageero oo baaxad leh u muujiyey runtii si wanaagsan baa loo hadlay waa la wada hadlay waxaana cad inaynu meel wada soconno waxna wada doonayno mar haddii loo dhaqaaqo siyaasad iyo kaambeyn iyo doorasho waxa weeye laba qof wax dooni maayaan saddex qofna waxba dooni mayso beeshaa sharaxday ee la soo baxday ayaa wax doonaysa haddii la xawaayana ceebtu halkaasay taala taariikh wanaagsan baynu dhisnay ilaa lixdankii maantana taagan waxaanu doonaynaa aanu jecelnahay idinkuna doonaysaan laakiin aynu u baahannahay inaynu badayno inaynu wada jeedino inaynu taa ka gugaadho ilaahayna guusheedayna siiyo waxaan leeyahay runtii in waxa la isku raaco dee ragaanay u dhegadaroolino ka hor imanayaa way jiraan tiradoodu intay doontaa noqoteen intaa shaqadeedu innaga inoo taalla wacyigelinteedu innaga inoo taalla albaab garaaceedu iyaga inoo taalla quluubta dadka iyo kalsoonida dadka inaynu kasbanno innaga inoo taalla annagu inaannu idin maqalno idin dhegaysanno idinla shaqayno intaba diyaar baanuuna
mustaqbal weey waxaynu soconaa waa mustaqbalna ka ku ciyaaraya hagool faraan lagu qabtaa loo baahan mustaqbal cidina kama weyna cidina kuma ciyaari karayso berigii dhoweyto aynu soo saaraynay labadeena xildhibaan ee golaha baarlamaanka sidaynu isku habaynay waa wax maanta laynaga dayday oo reer Soomaaliland oo dhammi qaateen innaga laynoo daba taagayay laynagu ammaanayaa laynaga qaatay tii maanta hadday xaggeena ka fashilanto waa ayaan darro waa nasiib darro waxaynu u baahanay waa kalsooni aynu dhisno aynu guryihii gaadhno aynu dumarkii gaadhno aynu dhallinyaradii gaadhno iyadoo la wada socdo reer cali waxaan ugu mahadnaqayaa casuumadday noo soo diyaariyeen garashaday garteen inaanu halkan isugu nimaadno wixii aynu wada lahayn aynu ka tashanno meel dhigno isku ogaano kana ilaalino wax makaratada aynu ka dhowrno wax makaratadu inaynu hogaamiso hayna hogaamiyaan odayaasha dhaqanka ee labada beelood ama labada jifo Axmed Cabdalle iyo reer cali tii siyaasadda timi siyaasaddu waxay u baahan tahay aniga walaalkay xariir waana wada soconnaa waana wada soconnay waana wada tashanaa meel baan u soconnaa meel baan target baan leenahay waxa weeye haddii madmadow yar yimi waxa loo baahan yahay Axmed Cabdalle iyo reer cali siyaasiyiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin meesha waxaanu maraynaa ama aan u soconnaa waa meel kirkidh badan waa meel caqabado badan waa meel wax badan ka hor imanayaan aynu hoos u dhaadhacno idinku waad ku aamsateen labadii reerba inaad sharaxdaan labadayada waad ku mahadsantiin Cabdalle iyo reer cali waxay isku raaceen xariir xirsi adar oo hogaankii reerka waxay ku xiga waa maayirkii magaalada caasimadda inuu dooranna Axmed Cabdalle shaki kuma jiro oo iskuma haysto Axmed Axmed bah hal dabala ayuu ugu ridayaan Cabdiqaadir xariirna hal dabala loogu ridayaan oo Axmed Cabdalle ugu ridayaan qof kama beedayo taasoo lagu abshiraya taasoo la iskugu yimi waxa weeyaan baarlamaankii waxa inoo hogaaminaya waa xariir xirsi adarre cid ka maqan oo reer caliya oo maanta maqanimo joogto Axmed Cabdalle indhahooga waa la tusay ugu dambeyntii ayaa kulankani hadhimo sharafeedka ay isku yimaadeen labada beelood waxaa la isla maaldhigay in la magacaabo laba guddi oo ka shaqayn doona horumarinta hagaajinta iyo abaabulka howlaha musharixiintani la isla qaatay kuwaasoo sida ugu dhaqsaha badan u howlgeli doona shaqooyinkooda maadaama oo yar tahay wakhtiga ka hadhsan qabsoomidda doorashooyinka waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal wararka muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV Hargeysa.